هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمام الصومالي ومدى الصوماليات وانا السلامي ولا ليال ميل كستود جوجتين أصحابتي دي يوتيوب كوانا السلامي ولا ليال reer walba Soomaaliyeed intuu gubta hoostiisa taal intuu ka fakaraan hoostiisa taal maxay ahaytoy waxyaabaha runta ah marka dadku iska wareystaan qof walba waxbuu ka baran karaa qof walbana waxay u noqon kartaa digitaan saaka waxaan idinkaga sheekaynayaa wadankan waqtiga aan joogno wax qabad wixii noo suurtagalay iyo waxyaabihii aan noo suurtagalin oo isku daynay maxay ahaytoy wax badan alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa noo suurtagaleen oo aniga idin sheegayay in badan oo familigayga intii badneed waa joogtaa waa timid anaana u soo horreeyay waa dadaalnay ilaahayna waa nagu guuleeyay waxaan idinka sheekaynayaa haddaba waxaa jira walaalkay weyn wiilkaan idinka sheekaynaya hadda aabiisa cabdixoosh taalil waa walaalkay maxay ahaytoy aabahayga ayaa dhalay walaalkay waxa uu ku xiran yahay ma hadda uu ku jiraa isbitaal waalida laga dhisay oo gabaraan saaxiibanahay ka dhistay magaalada Caabudwaaq ayuu ku jiraa halkaasuu ku xiran yahay ilaa maanta ilaa 2001 walaalka inaan wax u qabano ayaan isku dayeynay waana suurtagali laadahay waxaan oo diiday gabadh qabay walaalkayo saan idin sheegay magaalada Caabudwaaq anagu waan u dhalanay laakiin aqoon uma leeyahay Muqdisho ku soo kornay aqoon badan uma leeyahay dadkana si fiican isma wada garanayno marka walaalkay wadankan 2001 baan imid 2004 baan walaalkay wiilkiisa warad waxaan iga soo wacayn ka Kenya inta ka horna intaasoo jeer waxaan isku dayay inaan soo gabadhii waxaan la hadlay markaan imid waxaan go'aansaday inaan reerkayago idil isku keensado maxay ahaytoy oo aan bal wax qabto oo aan dadkayaga wax taro waa sida qof waliba uu ku fakaro oo aqli leh maxay ahaytoy qof walba gaajad iyo dib iyo colaadaha inuu familigiisa ka badbaadiyo uu jecel yahay familigeena waan idin sheego wiilashayada iyo aabahayba qaxibay dhintay marka waxaan noo soo haray marka laba wiil oo wiilkan iyo carruurtu dhalay iyo walaalkayga markaas yaraa walaalkay waxa dhalay aabahay laba wiil oo dhalay oo bahore u dhalay laba wiil iyo gabarba aabahay bahday hore u dhashay gabadhii wiilka yarkoo 2 sano jiro ay gabadhii dhashay ilmaha ka dhimatay aabahay labada wiil ayuu nin aad u ilma jecel weeyaan ilaahay abaalkiisa jannaha ka dhigo gabadhiina way ka dhimatay iyo xaaska way ka dhintaan aabahay labada wiil ayaa geelay buu ahaa geel badan oo aabihii ka dhaxlay buu aabahay geelisi markay xaaskiisa rajo noqotay aabahay wuxuu ii sheegay geedaha korkooda ka dhaacada iyo libaaxyada inuu intuu raka ka dhigo oo goglo oo walaalahay habeenkii labada intuu seexdo labadiisa laba go kala hooyo go'aysan oo labada dhinac walaalahay ka hoosan jiray walaalkay aabahay xoolihii iyo carruurtii isku keenay waay mana una doonaynin guur kale ilaa inuu guursado ilaa uu wiilashiisa ka korsado aabahay adeerada xaasaskooda ayuu isku dayay inuu la kaalmaysto markuu soo noqdaba carruurtii wuxuu arkay foolxun aabahay sidii ayuu xoolihii baadiye iyo wixii oo dhan aan uga soo gaaray oo magaalada Muqdisho oo ku soo galay maxay ahaytoy walaalahay si uu maaragtay adigu arrin siday noqotaba aabahay asna military buu noqday wiilashiisana waa u koreen markaa wiilashii kii u yaraa 12 jir yahay ayuu aabahay hooyaday oo nin ay saaxiib ahaayeen abti u yahay oo soo korsaday uu ku guursaday however maxay ahaytoy aabahay marka walaalka waan xasuustaa walaalahay Cabdixoosh iyo Ismaan iyo Cabdixoosh Allah u naxariisto Ismaan waa dhintay walaalka Cabdixoosh waxaan xasuustaa asagoo yaryar asagoo gaari iska ruga wata oo habeenkii noo yimaado isla habeennimadina guureeyo lacag intuu noo keeno waxaan xasuustaa walaalkay eediyadii ayuu agteedii buu wuxuu aaday shaqo ka helay dawladdu waxay u dirtay safaaradda Belgrade ee Soomaalida uu ka shaqeynayay Yugoslavia walaalkay ilaa waqtiga qurbo ku maqnaa ilaa 90
markuu ka dhacay dagaalku walaalkay gabadh buu guursaday 80 something 82 I don't know 80 meelahaas gabadhii wiil bay u dhashay sidii uu asna ku baxay gabadhan isku family isku dhow baan kala dheeray walaalkay waxaan xasuustaa markuu dabadaha ka yimaado walaalkay gabadhaas waxay reerkooda reer caabud waaq ay aadi jirtay markuu maqayay ina soo noqon jirtay waxaan xasuustaa walaalkay oo markan u nimaadno ama hotel ama gurigiisa aan sidii maaragtay sida martidii wax yarinta gacanta naloo saaro aan maxay ahaydtay macal salaamana lagu dhaho ma xasuusta guriga walaalkay oo waligay inta nala soo dhaweeyay koob shaaha ama koob cabitaanana laga siiyay haduuna walaalkay joogin macal salaamo waa iska soo noqon jirnay waxaan xasuustaa walaashayda weyn oo ilmo yar xambaarsan oo ninkii isku xumaadeen walaashii intuu Madiino markuu soo guuray 90gii intay gurigiisa ugu tagtay bilowga 90gii gurigiisa ugu tagtay xabarjidid intay ka baxday bas qaata walaalkay dibadda ka yimid ugu tagtay Madiino oo guriga dhistay waxaan xasuustaa walaashay ana xitaa basra soo helin because bajeeg walaalkay oo Madiino iyo ka soo lugaysay iyadoo ilmo yar xanuunsan meesha la yiraahdo xamar jidid iyada ay ka sheekaysay marka waxyaabo noocaas ayaa iska jiray gabadha anigu noloshaydii waxaan u maleynayaa hal mar baan arkay masal laba jeer umada walaalkay oo yimid aan u tagay oo iyada arkay iyo mar aan arkay maxay ahaydtooy mar aan arkay aabahay iyadoo u timid aan labada jeer baan arkay aqoon kale uma qabo laakiin dadku waa family isku dhawaalayo dhagaa waa la iska maqlaa marka however arrin si kastaba ha ahaato xiriirka noo dhaxeeya iyo aqoonta noo dhaxaysa intaba way yaray isnood maxay ahayd walaashayda weyn iyo walaalkay oo dhintay iyana ma wanaagsanin I think xiriirkaas xumaanayo has something to do with hooyadayda iyo also although hooyaday ayna wiilashan isa soo gaarinayno soo korino niman waaweyn ayagoo alla guursaday bad way hooyaday also hooyaday ma jecleen reerka iyaga iyaduna gabadhuna ma jeclayn annagu de gabdha yar oo faqriya oo reer caruur waxaan ahayn laba wiil iyo afar gabdhood baa gabdhaha noo waaweynayeen anaga waaweyneen saddex gabdhood isku xigtaan ahay oo anagu laba ka ahay markaa dee waan xasuustaa walaalka gurigiisa markaan nimaadno rag fara badan iyo waxyaabo fara badan iyo dadka ilma adeerta iyo ka amaan jiray iyo gabadha reerkooda iyo umad baa dhoominaan jirta waa nin dabada ka yimid laakiin anagu martibaan waan markaan nimaadno ama haddii asagu joogana wax yar buu gacanta noo saari jiray baxa in la arko ma uusan jecleen haddii uu kaleetano maxay ahayd tooy dee maba adduuna asagu joogina dee ridan ka soo noqon jir sida adoo arrin however sidee noqoto markiiba anagu waa iska guurguursanay waa lagu kala socday qaaxi baa dhacay anagoon aqoon badan isku lahayn aabbo waa dhintay bas anaa dadka uga soo horbaxay waxaan go'aansaday anigu markaa waxaan aaminay sharciga no man left behind inaan qofna waa sharciga militariga Mareykanka qof meyd iyo qof nool midna inaan laga tagin oo qof walba la soo qaado aniguna sharcigaasaan go'aansaday oo waxaan go'aansaday regardless of what aabahay iyo hooyaday iyo wixii aabahay dhalay iyo wixii hooyaday dhalayba qof kasta waxaan qaban karaa inaan qabto before inta chance aan haysto noolahay una qofna gaajada iyo dhibka iyo colaadaha aan reerka iyaga ka caawiyo isla markiiba xaaska walaalka baan waxaan ku yiri walaal Kenyan ana ka soo dhoofay inaan ku responsorana kaarka xunta waa laga rabaa walaal waxaan rabaa inaan xagar dheer idin jirabo idin raro lacag baan idin soo diraya wiilkan ayuu daw ka helaya ama dhaqaatiirta Kenya ka fiican tahay meesha joogto walaal soo guur waxay ku tira hooyaday waan hayaa ma guuray waxaan ku yiri bas aan qaato wiilka marka walaalkay aan ka xaysan ma ka xaysanaysid bay jir gacantayda kama baxayo ma ka xaysan kartiin hayaan ku iri badaad sidaa garatay waa la joogay meeshan waxaan awoodna ugu diri jiray 2009 wiilka wasaan soo qaadnay 2004 markii aan xaradu imaanaysay Muqdisho oo ka soo kaxaynay waxaan keenay baashi lacag baan u diray ana waa guuro meesha waan idin sheegay dadka laga responsaray waliba baan u guuray waa u diideen haddana wiilkii inaan soo dhoofiyo South Africa aan ka soo qaado iyo inaan soo dhoofiyo intaba waa diideen abriiris Mareykan jooga diideen adagu walaalkay inta hadba waa leeysaa waxa la xidhaa uu dhuuntay walaalkay maskaxdiisa waa la galay marka uu 90yadiiba isla hadal iyo isku buuq uu bilaabay dadku waxay oranayeen mar
I don't know dumar baa wax u qabtay meeluhu joogay hindi wax uga qabtay qaar waxay dhahayeen xamar baa wax looga qabtay qaar walaalkay waa nin aad iyo aad u qurux badan hooyadiis iyo aabahayba aad bay u qurux badnaayeen maxay eeytay cabdixoosh waxaa loo leeyahay waa very like skin qof ah oo maaragtay Soomaalida in badan ay dadka ajnabiga u eegan Soomaalida ee ka Yurubiyaanka u eeg marka waana aabahay familiga aan ka dhashay qof kasta oo garanaya reer doodo wuu garanaya ama taalin cad aabahay iyo adeerada qof kasta oo garanaya wuu garanaya walaalkay cabdixoosh adagu walaalkay saasa la dhihi jiray qaxi baa dhacay isku booqay wixii soconay wax la mar adigu walaalkay madaxa looga jiraa waxaan isku dayna marka walaalkay inaan soo qaado ama gabadhi iyo reerkii ilmahan aan wax barasho iyo fursad siino gabadhi waa diiday caruurta Kenya inay la soo gurto wiilka inaan qaadanana waa noo diiday walaalkay ah hayaan ku iri walaalahayga kalaan aruuriyay oo ka soo aruuriyay ayaga iyo caruurahay dhaleen bari iyo inta ka dhaxle maxay ay tahay iyo caruurtaydina waaba keenay markaan mid baan ka soo aruuriyo ayaa kana keenay walaalahay baan soo aruuriyay inta boosaas iyo ka dhaxle boola xaawo iyo adduun dabadiisa isaga keenay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ayaga iyo awlaadoodiba maanta waa joogan halka gabar oo naga hartay oo dhagoosh ayadoo kala hadlayana caawal markii waagu bariyo Afrika ka soo baxaysa Afrika ayad iyo 3 caruur ay dhashay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxay noo imaanaysaa 10 bish ayay imaanaysaa magaalada Hamilton dalka Canada aad ayo walaalkay xanuunkiisu ila xawiyay marba lacag soo dir marba walaalkay waa iska tagaaya uu dhumaaya bilbo duurka ku maqnaanaya ayaan xataa waxa jirtay I think 2006 in ayad in la igu yiri qof meeyda la helo inuu asaga yaa loo maleynaya 3 bilood la laa adigu gabadhii sidii wiilkeedii inaan dhoofino waa ku diideen raabtigay iyo ayadii walaalkayna inay ayadina soo raacdo way diido hooyaday baan hayaabay tir hooyadeed intaas oo gabdhood intaas oo wiilay dhashay baa u joogto reera leh oo aan ninkooduna xanuunsanay Soomaalida isku ma naxdo walaalka caruurtiisi iskuulna lama barin waxna lama barin ka weyn baa private iyo wax aad anigu xitaa in badan private ka bixin maxay tahay laakiin labada kale taba maxay tahay gabadhina caawdo wax baa lagu guursaday caruurku dhaldalaysa wiilkiina maxay ahayd maaqan maxamar buu marna aada marna ka soo noqda adigu qaad iyo sigaar dhalinyarada iska cunaysa wiilkii kalena noqday laba wiil iyo gabar bay ahaayeen walaashay baa timid walaashay kalaatay walaashay mid noogu weyneed baa timid iyo walaashay mid iga waa iska almaysanay 2002 alifkii waanaga walaashay wata 2009 markay timid aan dabcanay wiilkii gabadha siiso inay soo qaado waa diidan hadana gabadha waa diid waxa yimid 2002 alifkii anoo guri ka dhisanaya magaalada la yiraahdo Gaaris ayaan u diray walaalkay ayaan odaygayga u diray ku irtag caawad walaalkay soo kaxay walaal quraan sar dhakhtar madax aanagay walaalo waa wacnay gabadhi hadana waxa ku yiri markaan walaal odaygayga baa yimid nin weyn oo masuule walaalay aan wiilka soo qaadno daweyn ma laga yaabay tiri waaya adiguna soo raacna la soo daawe ma ay tiri hooyaday kama soo tagay kar waa diid 2014 walaalkayga weynaa baan dir walaalkayga yaraa baan dirno noogu yaraa baada kala ama ka dirnay Kenya waxaan u dirnay caabud waaq hargeysa u geeyay dhakhtar madaxa iyo dhakhtar iyo shaq cabdixaan culimada in la raadiyo culimada weysan oo ma lagu xareeyo walaalka jaad iyo sigaarkana aad buu cunaa in bal meel lagu xareeyo oo quraana lagu saar hargeysa laga furay bal meesha markaan ogaano halka aan ka sadaqaaqno oo markaa Kenya u soo kaxaysano oo isku dayna intaan isku tagno bal hadii halka dawlad looga waa inaan Canada la nimaadno isku tagno si aan ku soo qaadano waa shaq markaas ana waan shaqeynay group sponsor iyo wax inaan tan isku day u soo qaado walaalkay oo xitaa medical visa u diro hargeysa markii la geeyay gabadhii guri gabar walaashay dhashay baa la geeyay oo iga weyn sidii ayaan dhakhtarka lagu arkay dhakhtarka meeshii markii lagu xareeyo loo diyaariyay gabadhii walaalkay qaba waadiid waxay tiri ma lagu xareyn karo dawada la soo siiyo hala keen lacag baan dirnaa wax loogu qabanaayo wax loo taraayo midna ma jirto walaalkay wixii uu soo arkay wuxuu yiri hargeysa shabin iyo wax walba loogu sameeyay saasta loo keenay macawista jaajaxaneed buu ka qabaa dharkiisoo dhan dhalinyarada wiilkiisa iyo wixii baa iska kala qaybsaday dhalinyarada xaafadaha joogay isagana waa qofka waalnaad halka loo dhigayo cawda aad baan arinta ugu xumaanay walaalkay wixii jiro dhan buu soo arkay gabadhina waa diiday hadana
walaalka wuxuu yiri anagu dumaashada ma murmayno gabadhan asagu qaba rag waaweyn dhalay baana jooga ma murmayno laakiin meeshan dayac baa ka muuqdo walaalkan waa dayacan yahay numaara wax kasta la soo diran maalin walba sida neefka xooluhu suuqa caabud waa dhex maraya caabud waa qodhan cabdi xoosh taalil waa yaqaana neefka xooluhu suuqa caabud waa dhex maraya maxa sigaar daldalooliyo qaba qofku arkaba waana miyir qaba waxbaana ka yarasiyo maxay tahay walaalkay luqadda Jarmalka iyo luqadda Ingiriiska wuxuu ugu hadlayaa iyo luqadda Talyaaniga sida wuxuu ugu hadlayaa maxay tahay af Soomaaliga aan ugu hadlayno waa nin wax soo bartay waa nin intaas oo sano qurba soo joogay waa nin maxay tahay ma sha Allah maxay tahay gabadha caabud waaq bay degtay reerkii dhamaana caabud waaq inuu dhinacna u dhaafo waa diiday hooyadeed bay halka u joogtaa bas maxay tahay caruurtii iyo reerkiina inaan waxba u qabano ayadana nama raacayso annagina waa noo suurtagal wada waa noo diid walaalaha dabadaha yimid walaalka wiilka walaalka intuu joogo waan idin sheegay 5 qof ayaga kamid ah ayaa mid walba caawd waqti laga soo qaaday la dhoofiyo wiilka walaalka lacagtii laga qaaday annagina loo diid inaan dhoofino wax walba laga cancel maanta wiilka weynaa wuxuu ku wadaa taxi magaalada la yiraahdo baashi kii kalena xamar baa asagoo shaqalaana dhex taagan yahay labadooda midna ma guursan midna wax ma tabcanin maxay tahay midna wax ma baranin maxaa ku saaray waxa ku saaray walaalkay waxaan la soo wacay 2016 kibana la soo wacay waxa la yiri walaalkay haddana waa fakaday waa tagay wuu dhumay meel xuduudka Itoobiya markii laga baxa ayaa laga soo ayuu geel reeraha iyagu leeyihiin oo jooga ayaa loogu soo sheegay la yiri ina taalil oo dhumay baa halka maraya asagoo buuro korkood intaas oo bilood maalmood ku jiray oo ku gaajaysan oo ku sidicsan wiilasha baa raadiyaan oo way keeneen aanay iyo cunto wax bay siiyaan markaas ay nasoo waxaan yiraahdeen wiilka halkan u maraya bas waxaan niri waa chance ka yigi ilmaade reer wiilka ma noo qaadi kartin ha intaas oo bilaad u sayay mana nala soo wacayo mana naloo sheegayo mana la raadinayo wiilku dhalayna xamar bis ka jira midna waa kan Nairobi iska fadhiya gabadhu nin bay iska guursatay shaqul kuma lahan cidiyo intaas ay dharar leegin iyo timo intaas ay ku bixin gabadhaanuna waa neef xogay baxaytay dibiga kismaayo joogi jiray oo habeenkiina la soo xariisan jiray subaxina suuqa lagu sii dayn jiray bas arinta markana loo soo waxay ilmaadeerada ayaan la hadalna waxaan ku niray waa idin baryaynaa this is abartanta awal wiilkeeda qori wato laga baqi jiray noo qaada wiilkan noo geeyo shaq cabdi xaq baa hargeysa imaanayo cumrada markaa jiray noogu geeyo dhakhtarna noo geeyo waana soo qaadanayna lacag baan dirnay markayba wiilasha baa gaari karayeen waa la ord mar alla dadku waa tol waa la isku dhawiyaa markay maqashay gabdhihi baa qaadanaya walaalkood ee wiilkeeda xamarka yay tu tagtay wiilasha waxay ku dheen 3 bilood buu duurkan ku jiree xageed ku maqnayd haduu ninkaaga yahay maxad inta u raadsan weyd kaalama tashanayna gabar yahay dhaqaaq reerkiina ilmaadeerada sida bay walaalka hargeysa ku keeneen ninkii intaa silacsana oo intaa duurka ku jiray oo dacaska goog aan xiran oo timuu rastada ku yino cidiyo intaa ku bixeen oo macaawista jacfaanka oo la laamnay xirnayd lacag intay isku keentay oo wiilkeeda baroor dirsatay ayaa xamar diyaarad ka soo saartay markaas ay hargeysa ka dejisay oo intuu wiilkeedii Nairobi waa la xadayaa way gadanayaan xubnihiisay gadanayaan Canada inay ula dhuntaan bay rabaan inay qaataan bal waxa fiiri hal aabana dhalay oo wada koriyay oo adduunka noogu jecel albadow nis rijaal maxay ay toy waan buuxnaa anagu rag iyo dumar reer ilaahay buuxiyay baan qof kasta wuxuu sidaa u dadaalayaa inii ajar waa abtiye inii ajar laga helo oo la wanaajiyo oo midda kale aabba ma noole booska aabiya asagaa noo taagane inuu walaalkayo caafimaad iyo nolol aan meel walba ku dayno wiilka hargeysa la geeyay gabar walaashay dhashay oo gabiilay degan baa gurigeeda u diyaarinay alaab u soo gadnay iyo wiilashii waday dhakhtar baan geynay dawaa loo bilaabay kaale arag asiga quruxda uu ku nool yahay iyo nolosha uu ku nool yahay aadan malay karin oo aanay ka qasnayn on cabdishaq cabdixaq oo cumrada ka soo noqonayna la sugayno ayuu wiilkeedii diyaarad hargeysa ka soo dabal waxaanoo lacaga xaggay ka keeneen waxaa ka horeysay waxay soo wacday gabadhan walaasheeda Mareykanka joogta
ayaa igu tiri anna walaalkaa ma biilayne qaado walaalkaaga naa walaalkayo waxaan ku yidhi intaas 20 sano dhawaan joog baan raadsanayne walaalay naga qabsada walaasha naga qabsada annagaa walaalkaya qaadanayna oo la wareegayne naga qabsada oo dawaysanayna walaalkay naga qabsada dhak way hayay tirqaata walaalkay meter ana hadda walaashay waxay cidida kuma qabsanaaye jamaada dad fiirsanaysa waad maqlaysaa hadalka saddexdeedaba intaan taleefanka intaan isku xiranay baad nala hadasho tirqaata walaalkin inaad walaashay cashatay ahay waan soo orodnay hargeysaba waaba ninkii askarta Soomaaliland watoole aabay baa la soo xad de aabay qofku markuu yiraahdo ilma adeerada baa waday maxaa laga had oo la soo aruriyo wiilasha la yiri war nin baad soo xadeeno halkan Canada inaad ka dhoofisaanood Canada uga dhoofisaanood hargeysa laxdo Ethiopia la wadaba laga soo xado la qabto wiilka jooga xaabud waa bi sida u silcayo Nairobi jooga waxa laalay wuxuu malaha arursanay ilaa meesha la yiraahdo meeshan maxay ahayd ilaa galkacyo ilaa iyo meesha la yiraahdo maxay ahayd meeshii galdogob yaa lacag looga qaatay anaa kan yeelaya annaga la ii qabta dadkaas ha la ii yeelo alla Soomaalihin badanaa waxay inta isku daba ordayaan waa wiilka ama la daweeyaa iyo wiilka malaha sidaan anigu fahmay reerkii waxaan oo lacag ay soo faqeen malaha waa la sirxay iyo sixirkan iyo baladan la sheegaya wax ka jiraano ama Sheekh Cabdixaq waa kan wax walba sheegaya sixirkii fasir oo furaa annaga xanta waxay nagu soo gaartay walaasheed xalwa la yiraahdo ka weyn oo malaha 5 iyo 6 nin guursatay ayaa maxay ay toy gabadhan malaha ninkan markuu dabada ka yimid guriga dhistay oo ilmo badanna aan isku lahayn istira ama reerku malaha ama naaga kaliya malaha wax guursaday mooyi oo meel u tagto malaha wixii ba qarmay malaha ninkaaga cishay islaayade iyaduna iska jiraa ma ilaahayne ma aqaande Allahu yaclam anigu ma ogeyn waan waxa dhaga maqlayo xantad reeraha laga dhax maqlayo reerkii inta la isku yimid markaanu wiilka hargeysa geysanaanu rabno intaanu dawaysano inaanu Nairobi kan ula soo tagno ama Ethiopia oo ugu tagno ka responsible on dacwad iyo ama fiisa xitaa caafimaad uga diyaarsano haduu Sheekh Cabdixaq noo daweeye iyo Ilaahay noogu daweeye iyo hargeysana aanu niraana markaan inta meel dajino meel yar guri yar intaan u dhisnaan niraana waralkaaga life-kaaga waxaad rabtaa ku samee ama islaantaadu ku noqo waaba kanaaba dacwad waxay lacag iska farqayaan waxay lacag iska sokiin Nairobi joogay aabahay baad qaadateen aabahay walaashay tii weyneed ana waan aamusay walaashay tii weyneed ayaa ku tiri warintaas oo $100 baan bixinay haddana inaan bixino diyaar u nahay walaalkayo idinkoon dhalanin baanu eeda aaba ahayni maxay ahayd oo wiilasha walaalahay dhaleen wala adeeraday dhaleen u tooray ula soo baxay wiilka walaalkay dhala hadal maxaa lagaaga daalinayaa waa qamar qaadkii sigaarka saa isugu diraya waa laga baqayaa hadal maxaan kaaga daalinayaa walaalkay Sheekh Cabdixaq bariyo ma kala markuu imaanayo ayay tiraahday iisoo sar gaarin intay lacag caabud wax soo siisay iisoo qaad wariyaahoy waxa la yiri nin naaga wadiya dibi wada dibi maxaa la dhihi jiray waxa ay nin naaga wada midna kaama waabto walaalkay caabud wax ayaa dawadi iyo wax qabadki iyo waxaanu la rabnayba naagta wiilkeeda xamar diyaarada ka soo saartay intay order gareysay ku celisay caabud wax walaalkay isbitaalka waalida caabud wax ku yaalo fahma caabi dhistay ayuu ku jiraa bal tolow oo ehelow walaalkay halkaas ku loo garaysan yahay waxa loo garaynayaa waa ilmo walaalahay adeeraday wiilashooda ama ay mar labaad intay garab qabtaan ay gabdhahaasi wiilka gacanta naagta ka bixiyaan oo ay wax taraanay wax u qabtaan oo ay soo dhaafsadaan weeyaan reerkayaga hadda reerkayaga konton iyo waxaanu nahay malaha 6 qof baan nahay aabahay iyo intu dhaliyo waxay dhaleen 3 qof ayaa disable naga noqotay oo aan noo sameyn wiil yaro aan anigu dhalayo hadda 9 jira 5 sano intuu ka gaara ma hadlin 5 sano ku hadlay alxamdulillah maanta iskuul buu dhigtaa Salmaan waa ninkii maalmood YouTube ka aan idinka tusay gabadha dhagoosha ee walaashay dhashay mataanta ayada iyadu noo saartay wiilka naga dhintay maxay ahayd gabadhii isku tagnay waxaan ugu tagay meesha la yiraahdo xagar dheere
markay hooyaday diiday oo intan anigu ugu tagay baa ka soo kaxeeyay oo hooyaday la noqotay askar intaan dalbaday baa ku soo qaaday oon ayadii iyo caruurteediba waatan caaway ka soo baxayaan maanta waxay soo galayaan waagu markuu bariyo Nairobi la geynayaa gool dawladda soo qaadayso laga soo qaadaya 10 bishii halka noogu imaanay waan idin tusi doonaa fiidiyogeeda waxa noo haray labadii qof oo kale wiilkii yaraan ilaahay noo hadalsiin gabadhina wataa waa keensan walaalkay halkaas ku qafilayn haddii aan tago baasaboor baan haystaan walaalkay inaan wax u qabto damcana inaan ka haystana wiilkii baa la igu yaray wiilkaan eedada u ahaa baan ka baqaya qori intuu ii qaato inuu aniga xabad igu rusheeyo idilo haddaba waxa weeyaan mashaakilkaas hadda wiilka aamusnaa inuu anigu dhalayna ilaahay noo daweeyo waa ninka maanta iskuulka dhiganayo hadlaya gabadhii dhagoosha ahaydna 3 qof baa reerkayaga wax ka yara si noqdeen keensanay oo hawsheedii waxaan rabtaba dhammaanay waxaa soo haray walaalkay halkaasoo ku loo garaysan yahay 42 qof baan ku joognaa waa abti waa aabbahay taaliil wuxuu dhalay qofkii ugu weynaa haddaan wiilashiisu wuxuu qabanaynin oonay wuxuu qaban karin wiilashiina wuxuu qabana noo diiday asagii inaan ka haysana noo diiday bal islaanow waxaa la yidhi dib hawar xunu horay ma noqdo walaalkaygeerna 11 dumar u guursaday waa hooyaday waxa dhibkaa ka dambeeyaayoo geysta waa caruurtii walaalkay iyo caruurtiisina waxaan wax uga qaban weyno fartan qaadnaba naga soo hor xiraysaayo waa gabadhii walaalkay qabay labadaa dumara malaha ayagaan isku jeedo malaha ayagaan isjeclayn dhibkaasay anagana noo geysteen wax qabad raggayagii labadaa dumara hooyaday iyo dumaashaday ayaa raggayagii noloshoodii baabi'iyeenoo ku ciyaareen maxay ahayd annaguna gabdhaan nahayo waxaan leenahay war aabihiin ha idiin duceeyeen aabihiin bal wiilashiisa wuxuu qabta maxay ahayd idinkii waabad ismaqasheene gabdhihii ismaqalnayo iswada caawinayo waana kanaa bal waa kanaaye ilaahay waa casiise bal tala keena hooyaday waxay tiri xadna ma rabo laymana qaadi karo ilaa asaga la qaado labadoodina hal mar nooma suurtagelayso inaan wada qaadno waa inaan kala qaadno si unu kala dabarno asagina lama kan hooyaday dhashana lama qaadi karo habartii haddaanan habarta lala soo qaadin hooyaday halkaasay reerkaa ku xanibtay gabar alla gabadhu guursadana 6 bilood markaan sheekadiisa idinka sheekeynaya kadibna gabar buu guursadoo furo 6 bilood gabar ma qabayo gabadhii loo keena baa sii socotaa 11 dumara gabadhii walaalkay qabay deeqa cali degayrna saasay u baabi'isay reerkayagii walaalkay iyo labada wiil iyo gabadhu dhalay sidaa ayay ku caabud waaq iyo life baadiye iyo qaad iyo sigaar cunis iyo taxis wadis ayaa walaalkayna halkaa maanta jeelkaa caabud waaq halkaa dadka waalida asagoon ilaahay badinoonan awood u waayin uu ku jiraa amuu ninkaa intay gabdhahaasi kaxaystaan ay wuxu qabsadaan waxaan u malaynayaa amay ka fakarayso amuu naa kale intuu caafimaado ninkaa quruxda badan uu naa kale kaa guursadaa holting oo wax walba loo sameeyey oo reerkaa u baaba'ay waa ninkaa quruxda badani amuu naa guursadaa sidaan anigu u malaynayo allahu yaclam de wixii jiro ma garatay laakiin annagii bay naga ilaalinaysaa maxaad dumar kale u malaysaa lifekiisii oo dhan saasuu walaalkay ku baaba'ay halkaasuu ku xiran yahay kii Nairobi joogay taxiga $100 ka shaqeeyo wuxuu ku bixiyaa jeelka walaalkay waalidee lagu hayo maxay ahayd wax u qaban kara iyo wax ka fujin kara iyo wax tari karana ma jirto haddaan intaa baxo caawa hawshii labadii qof oo kaleeto oo reerkayaga wax kasi noqdeen wiilkayga aamusana saan abiina quraan ugu aqrinay anna waa la tuugayay yaa ilaahay nooga hadal siiya maanta waa ninkaa ordaya gabadhii dhagoosha ahaydna keenay waayahe walaalkay halkan uu ku xiran yahay Soomaaliya sharci fiican kama jiro qori baa guriga u yaalla iska kay dili karaa xamar bay sakan uga yeeraysaa maxay ahayd hadduu rabana waa jooga walaalkay halkaasuu ku xayiran yahay wax naga qabsanayana ma jirto
walaalayaad waan wacay maraykankan ka wacay war wiilkan waa xanuunsan yahay aan qaadan walaalahayo dhan waan wada waxnay walaalood qaatay leeyihiin nagamana qabanayaan ayadii afna annaga nagula hadlayaan afna say rabaan bay yeelayaan walaalkayna halkaasuu ku xiran yahay cabdixoosh layfkiisii iyo futurekiisii iyo mustaqbalkiisii maanta waa 60 jir laakiin annaga waa walaalkayo waa curadkii waa aabbahayo curadkiisii maahana waa curad ku-xigeenkiisii waan jecelna maxaa yahay toy walaalkay lifekiisii gabadhaas waxaa yiran yahay askartaas ay haysataa wiilashina la degtay gabadhina xawdu aqbo maxay ahayd ay ku nooshahay nolol ilaahay xaalkeeda ogyahay oo maanta toole aan hadday fool qabato ma isbitaal lagu qalayo wanaagsan aanu ku oolin wiilashina saasay ku baaba'een kii hooyaday dhashayna sanad walba gabadhu guursadaba sidii looga eriyay ayuu sidaa ku baaba'ay marka waxaan arrintaa idinku sheegayaa dibi habar xuno horay ma noqda labadaa dumara hooyaday iyo dumaashaday waa la degeen midaanuna ninkeediiyo 3 wiilay dhashay 2 wiilay dhashay la degtay gabadhii hooyadayna annagu ka fakana aabbahay oo nool baan guursanoo ka fakanaye halkii wiila u yaraa la degtay marka waxa weeyaan reer walbow waxaan maqli jiray reer ay u tariso dumarku waa 100% waa dad wanaagsan 100% laakiin xabad waxa ku jirto dumar iyagu isfiirsanayo ayaa aabbahay awlaadiisii baabi'iyay ma garata hooyadayna ma jecleen familigayga tanuna ma jecla familigayaga labada dumaro inaan wax isqabsano inaan iskalmeeyo in la suuxlaystaro la diid aad baan uga xumaadaa marka walaalkay halka uu ku jiro qof nool ma give up garayn kartid oo mar walba waxaad is leedahay talaa jirta I wish dowlad sharci hadday jirto saw intaanu tagno askar ka haysano meel tagno magtiisa walaalkay annaga iskale maana dhaneen walaalkay annaga qaadanayno soo dawaysanayno qoryaha qof walba sitaa caabudwa waa lagu dilayaa ma tagi kartid inaan wax u qabaniyo inaan wax u dhisniyo inaan iskuulla ka furno intaba waan jeclay naftayadaan uga baqaynaa wiilka walaalka dhashay qori noogu dhibto aan naftayada uga baqaynaayo qofkii u soo dhawaaday inuu dila laga baqahaya iyo wiilashii adeeradooda dhalay see marka wax loogu qaban karaa ummadda raacaabud waaqay maqlaysay ilma cali degeer arrinkaasay nagu sameeyeen walaalkayna halkaasuu ku xiran yahay cabdixooshna dadku waa la wada dhasho waa la wada yaqaanaa maanta inaan wax u qabana aad baan u jecelna laakiin walaalkay walina hooyaday baa la hartay walaalkay cabdixooshna deeqa cali degeer baa la hartay marka waxa weeyaan wiilasheedina la hartay ayaguna dad wuxuu qabta ma ahan aabbahay waan xasuustaa maalinta la yidhi cabdixoosh ina cali degeer buu guursaday aabbahay kuma faraxsanay ma garata dadka qualitigoodaa la fiiriyaa soo ma fahmin marka wasalaamu calaykum assalaam waxay la dhalatay ninkii maxay ay tahay gabadha xaamilada ah dilay oo reer waqooyiga ah masaarka ku dilay waayaanoo sheekadiisa idinka sheekaynaya la dhalatay wiilku abti u yahay ninkii gabadha xaamilada dilay meel inuu wax dilo waa very simple annaguna naftayadaan u baqayna allah noo naxariisto asalaamu calaykum marka waxa weeyaan faataxada noo soo mara ilaahay xal aan ninkaa jaalka uga furno wax ugu qabano dawo ugu raadino iyo diinsaar ilaahay inuu helo noo soo bariya reerkayagii maxay ay tooy hawshaasaa ka jirta reecaabud waaqna waxaan ka qabanayno karno ma jirto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi I hope waxna caawiya inaan helno dagaali haddaanu tagno oon ilma adeeradaya ku oynana waxay noqonaysaa in wiilka walaalkaa dhaliya ilma adeerada isdilaan wasalaamu calaykum